waqtiga la joogo dadka Soomaaliyeed waxay u diyaar garoobayaan in ay qayb ka noqdaan adduunweynaha maanta hiigsanaya horumarada kala duwan ee caalamka intiisa badanba horumarku uu ka bilowday hay'adaha dadka Soomaaliyeed ma ilaawi karaan dhibaatooyinkii soo maray waxay sabab mudan yihiin in wax laga barto sidaas oo ay tahay dadaalku uu socdaa hayeeshee hawlaha loo baahan yahay ee ummadda Soomaaliyeed hadda ka maqan ama horgoglan waxay u baahan yihiin faham fara badan taana ma hirgeli karto haykal warbaahin la'aan shacabka Soomaaliyeed had iyo jeer waxay u baahan yihiin in ay ka qayb noqdaan horumarada dunida ka jira iyaga oo had iyo jeer doonaya in ay helaan goob ay ku baahiyaan xaqiiqooyinka iyo fikrada ay aaminsan yihiin sidoo kale kama marna had iyo jeer in ay helaan goob ay ka daalacdaan warar iyo barnaamijyo tayeysan kuwaasi oo saldhig u noqon kara fikrada iyo horumarada ay aaminsan yihiin shacabka Soomaaliyeed haddaba horumaradaas oo dhan waxaad ugu xiriiri kartaa hoyga wararka xaqiiqooyinka ee xog waran waxaad ka heli doontaa warar iyo warbixinooyin isugu jira maqal iyo muuqaal iyo waliba sawirro iyo qoraalladii ugu dambeeyay oo ku saabsan wararkii caalamka iyo Soomaalida si aad u hesho wararkaasi ku soo biir oo like saar kana mid noqo asxaabta xog waran news xog waran news oo warbaahin ka hashta xaqiiqda mar walba ku xirnaaw xog waran news xaqiiqdii saaxiibayaal aad baad xogta u raadisaan hayeeshee xaqiiqda runta ah iyo xogta aad u baahan tahay way kala fog yihiin qaabka ay kugu sheegayaan warbaahinta waqtigan casriga jirta si aad u hesho xogta ku saabsan dalkaaga iyo dunida oo dhan iyagoo qoraal maqal iyo muuqaal intaba ku salaysan oo sawirro gaar ah oo qurux badan lagu dheehay ka daawo ka akhriso kana dhageyso warbaahinta xog waran news